gacan ku dhiglihii ayaa si degdeg ah hawada u soo mariyay fallaadh sun ah isagoo toos u abaarayay maamulaha guud. daqiiqadaas xasaasiga ah gabadh yar oo 8 jir ah ayaa fallaadhii si fudud hal gacan ugu qabatay. isla markiiba gacan ku dhiglihii wuu diiday inuu quusto wuxuuna isku diyaariyey inuu baabuurkiisa ku jiido maamulaha. gabadhii yarayd ayaa mar kale tallaabo qaaday iyadoo baabuurkii xawaaraha ku socday ku joojisay hal far oo keliya. intaas kadib iyadoo farta uun ku bitinaysa baabuurkii ayaa si lama filaan ah u qarxay waxaana goobtii ku hadhay oo keliya darawalkii iyo steerinka uu haystay. markii ay aragtay naxdinta ka muuqata wejiga maamulaha gabadhii ayaa u shaacisay aqoonsigeeda dhabta ah iyadoo sheegtay inay tahay ayeeyadiis oo soo laabatay sida xaqiiqadu ahayd 3 maalin ka hor uun iyadoo samaynaysa tababar sixir ah ayaa waxaa si kama ah ugu dhacay danab taasoo keentay inay isu beddesho gabadh yar. isla markiiba waxay adeegsatay awooddeeda si ay u ogaato sababta ay tani u dhacday. waxay ogaatay in dariiqa keliya ee ay ku noqon karto qaabkeedii hore ay tahay inay barwaaqo iyo guul u soo celiso qoyskeeda. sidaas darteed iyadoo ku jirta jidhka ilmo yar waxay u soo degtay dunida dadka si ay u raadiso xubnaha qoyskeeda. isla daqiiqadaas baabuur raaxo ayaa soo istaagay horteeda. maamulaha guud ayaa baabuurka ka soo degay gabadhuna markiiba way garatay inuu yahay wiil ay ayeeyo u tahay. markii ay doonaysay inay salaanto waxay aragtay qof isku dayaya inuu khaarajiyo wiilka. markii ay ka takhalustay gacan ku dhiglihii waxay u sheegtay maamulaha qofka ay dhab ahaan tahay ninka dhalinyarada ah wuu rumaysan waayey gebi ahaanba hadalkeeda. sidee ayay gabadh 8 jir ah ugu dhiiran kartaa inay sheegato inay tahay ayeeyadiis? xitaa markii uu arkay iftiinka sixirka ee madaxeeda ka dul dhalaalaya wuxuu ku adkaystay inay adeegsanayso xeelad ay ku qaldaso. wuxuu markiiba amar ku siiyey ilaaladiisa inay soo bandhigaan xeeladeeda. si aan la filayn raggii ilaalada ahaa way arki waayeen sixirka gebi ahaanba. maamulaha guud wuu naxay. isla waqtigaas gabadhu waxay markiiba garatay in maamulaha guud uu si xun u xanuunsanayo. tani waxay sii kordhisay naxdintiisa sababtoo ah isaga keliya ayaa ka warqabay xanuunkan qarsoon. gabadhii ayaa markiiba ku amartay inuu u keeno 10 nin oo jidhkoodu dhisan yahay si ay u daweyso. wax yar kadib 10 nin oo xoog badan ayaa la soo safray hatiisa. kadib markii ay si taxadar leh u xulatay waxay ku amartay inay goobaab u fadhiistaan oo ay ku wareegaan isaga. markii uu arkay qaabkan la yaabka leh maamulaha ayaa dareemay walwal. markaas ayay gabadhu u sheegtay sababta uu xanuunsanayo. qof ayaa sixir habaar ah ku riday si uu nasiibkiisa iyo cimrigiisa u dhaafsado. gabadhii ayaa adeegsatay awooddeeda waxayna tustay daruurta madow ee sixirka ah ee dul heehaabaysa madaxiisa. markaas uun buu ugu dambayntii rumaystay. intaas kadib gabadhu waxay samaysay qaab sixir ah si ay awoodda ragaas ugu wareejiso jidhka maamulaha. wax yar kadib sixirkii madoobaa ee saarnaa wuu baabay gebi ahaanba. dhinaca kale haweenaydii sixiroolada ahayd ee habaarkaas samaysay ayaa si lama filaan ah u dhaawacantay.